ama inaka shariicadeena toobada culimadu markay ka hadleen waa kuwii lahaa toobadu markay adoonkiyo ilaahiisa ka dhaxayso waa saddex weeyaan saddexda hadii laga helo toobadaadu way ansaxaysaa hadii mid laga waayo toobadaadu ansixi mayso ka koobaad waa kii culimadu waxay yiraahdeen dambiga aad ku jirtay waa inaad ka dhaxbaxdaa talabaadna ma aragtaanay dambiga aad sameeynay waa inaad cazimiya go'aan aad la timaada inaad mar labaad dib dambiga aanad ugu noqon ta saddexaadna waa inaad markaad xasuusato dambiga aad sameyn jirtay waa inaad ka qoomamaysaa ka nadamootaa saddexda hadii qofka taa'ibka laga helo toobadiisu way ansaxaysaa saddexda ha shardi hadii mid uu ka maqan yahayna toobadaadi waa naaqis wali weeyaan haddii bani aadan xaqiisii meesha uu ku jirana shardi afraad bay culimadu sheegeen oo waxay yiraahdeen waa inuu qofku ma aragtaan xaqi bani aadan lagu lahaa waa inuu qofka wixiisa iskaga celiyo weeyaan ama waa inuu cafis ka dalbaa marka ummadihii naga horeeyay toobadooda waxa looga dhigay shuruud inay ka dhaxbaxaan mujtamacan xun ee dhiiga ay ku dhaxdaadiyeen oo deedna mujtamac wanaagsan oo meel wanaagsan ku nool inay raadsadaan ba shardi looga dhigay